بسم الله الرحمن الرحيم وعن داوديال كسو دبادا قبناها حقيقة وررك عالمك iyo waliba Soomaaliya halkani waa Shariif Show waxaan qaada ligi doonaa ama aan falanqeyn doonaa dhowr qodob oo la xiriira xaaladda bariga dhexe waxyaabihii soo cusboonaaday ragi wuu kala adkaada laakiin marka kani xaaladdu waxay u muuqataa in dhinacyaduba si weyn isku hayaan gantaalada midba midka kale midka cusub ayuu la soo baxaya waxaan sidoo kale eegi doonaa waa maxay fariinta kurdiinta waqtigan ay direen sidoo kale waxaan eegi doonaa burburka baaxadda leh waqtigan ee Iiraan soo wajahay bal muuqaalkan yar ila fiirso waa bogteena fila waa burburka ugu weyn oo waqtigan si u soo foosaaray Iiraan duqeymaha ka dhanka ah Israa'iil sida joogtada ugu fulinayso ayaa u muuqda in ay si xoogaysanayaan waxaan sidoo kale eegi doonaa kurdiinta maxay ka yiraahdeen waxyaabaha halkaas ka jira sidoo kale wali burburka aad ayuu baaxad u leeyahay Iiraan marka si loo eego marxaladaha kala duwan ee sida weyn u wajahayso runtii guryahaas u wada jeedin waa meelaha burburka baaxad leh markan sida weyn u soo foosaaray Israa'iil kadib duqeymaha kala duwan ee Iiraan ee halkaas ka fulinayso waxaan sidoo kale eegi doonaa waa maxay fariinta kurdiinta waqtigan ay direen We have been planning for a long time, and now that conditions are more favorable, there is a strong probability of action. We have yet to reach a decisive decision, but it is highly likely we will move forward with a ground operation. madaba suurtagalna ma noqon kartaa in kurdiintu waqtigan iyaguna ay ku goondinayaan in ay qaadi doonaan dagaal oo waliba aan ka fiirsasho lahayn oo waliba dhinaca dhulkaahi waxaan sidoo kale eegi doonaa marxaladihii ugu dambeeyay iyo waliba duqeymaha kala duwan ee aan kala joogsiga lahayn Iiraan iyo waliba sidoo kale Israa'iil iyo Mareykanka xulafadiisa waqtigan sida xoogan halkaas ugu socda intaas ayaan rabaa in halkan idinku qaada ligo soo dhawaada markuu ugu horeysa channelkan subscribe noo soo saara mahadsanidin saaxiibaal sidoo kale like tan meel dheer gaarsiinaysa bal like tan naga karina saa meel dheer ugaad mahadsanin soo dhawaada saaxiibaal duqeymaha Israa'iil ay ka fulinayso ayaana muuqda burbur aad u baaxad leh kuwaasi oo na geystay xaafadaha in ka badan 220 qof inay markaasi ay ku dhinteen ama ay ku dileen duqeymaha halkaas ka dhacay waxaana sidoo kale jira tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen halka boqolaal kun oo qof oo kale ay ka barakaceen tan iyo markii Israa'iil ay bilowday weerarada markaasi ee culusi ee dalka ka dhanay markaasi ku wada dhinaca kale waa markaasi weerarada ayaana imaanaya kadib xilli Azalbataan iyo waliba sidoo kale toddobaad ka hor gantaalo ay ku weerartay Israa'iil saameynta ugu xoogan waqtigan ay ka imaatay iyadoo la tilmaamayo in ilaa haatan qorshayaasha ugu waaweyn ee Iiraan ay degtay ay tahay in waliba markan iyadana gantaalo ku ugu cuslaan markan ay diyaarinayso si mar kale ugu fasaxileed guud ahaan halkaasi waxaa sidoo kale jira warar kale oo ka duwan taasi oo in hogaamiyaha Iiraan ee hadda cusub uu isagana ku dhawaaqay in talaabada xigta la qaadayo ay tahay mid markaasi gebi ahaanba dhulka lagu dhigi doono Israa'iil iyo waliba sidoo kale Mareykanka waxa inta badan la warinayaa Iiraan waxay doondoonaysaa ama raadinay ugu jirtaa meelaha ugu waaweyn ama saldhigyada militariga ugu waaweyn ee markaasi Israa'iil iyo waliba sidoo kale Mareykanka waana waqtigan waxyaabaha ugu adag ee ay sida weyn isku weydiinayaan inkastoo saamileeyda halkaasi ku qotontaay ay si adag markan ugu digayaan fariimaha kala duwan ee isaga imaanayaan ee u muuqato inay tahay mid saameyn xoogan oo waliba culays ay ku yeelan karto Israa'iil duqeymo culus ay ka fulisay Iiraan in ka badan 120 ruuxna waa ay ku geeriyoodeen kale kale tiraabeel ahina waa ay ku dhaawacmeen wali duqeymahana cid si joogsi markaasi ugu gambatay ma jirto oo inay joojiso laakiin wali fariimihii goondiga ayaa socdo ilaa haatan talaabo kale oo ka dhana la qaaday habeeraatee ma jirto marka inta si la joogo ninkii la oran jiray Abaabasha Xuseini hogaamiyaha ama dabcan xokayaha guud ee markaasi ururka dabcan ama kabtanka loo yaqaano oo kurdiinta isagana fariin culus ayuu soo diray hadaba waxyaabaha uu leeyahay waxa kamid ah haddii dagaalada bariga dhexe ka socda aanan laga fiirsanin waxaan qaadi doonaa midda Iiraan iyo Israa'iil isku hayaan mid ka duwan ayaan qaadi doonaa
bal hadaba muuqaalkiisan ku daari doonaa marka daawato adiga yaabi doontid bal in yar daawo for a long time, and now that conditions are more favorable, there is a strong probability of action. We have yet to reach a decisive decision, but it is highly likely we will move forward with a ground operation. The Americans have contacted us through various channels, but until now we have not met directly. But they contacted us. They asked what we should do with this regime. What are the ways? And talking, we can cooperate. طبعا hadaladiisa ugu dambeeyay oo dabcan hanjabaada ugu dambeeyay ay diraan waay wuxuu leeyahay Ababa Sheekh Hussein oo ah xogayaha guud ee ururka markaasi ee kabtanka ama kurtiinta Iran ee kana markaasi saldhiga ee Iraq ayuuna markaasi ku sheegay ama u sheegay Al Jazeera inay markaasi u baahan tahay buu yiri dagaalka ka dhankay waqtan halkaas ka socda iyo waliba sidoo kale sidii lagu joojin lahaa wuxuuna sidoo kale uu aad u adkeeyay ama dabcan ugu celceliyay in dhawaan ay qaadi doonaan weeraro oo aad walibana ay u xoogan oo ku qorsheynayaan inay gabi ahaanba ay ku basbeelin doonaan duqeymaha iyo waliba sidoo kale weerarada ay dabcan u qorsheeyeen wuxuuna si cad u sheegay in hadii aanan laga fiirsanin weerarada ka dhanka ah ee Iran ay qaadayso in markan dabcan dagaal kale ka dhana waliba dhulka inaguna aan qaadi doonaa ayuu si kastaba ha ahaatee hadalkiisa ay ku soo aaday xilli xiisada bariga dhexe ee saameyn xoogan ay sii yeelanayso gantaalada la soo idaarsanayeen kuwa markaas aad u xoogan ee waliba dhibaatooyinka ugu weyn waqtigan ay wajahayso bariga dhexe Iran wali fariinteeda ay dirto hogaamiyaha cusub wali wuxuu taagan yahay waxaan gebi ahaanba dhulka dhigi doonaa oo aan dagaalkeena aan marnaba ugu hari doonin Israel iyo waliba sidoo kale Mareykanka ayuu leeyahay labadaasi waa labada noo itaal garaysan buu leeyahay oo dabcan diirada aan saari doono si kastaba ha nagu qaato waqti kasta ha nagu qaato yool kasta aan u marnaba aan dhulka dhigi doono uu leeyahay xaaladda bariga dhexe ma sahlano waliba aad ay u xun tahay wixii warar kale ka soo kordhay iyo macluumaad kale la xiriira halkan aynu kugu la wadaagi doona saaxiibada kale subscribe tana noo saara channelkan like meel dheer in gaarsanaysa bal inoo la gareema sanadeen